maamo Sahra Cabdilaahi Sheedaal oo kamid ah hooyooyinka Somaliland ee gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Arabsiyo isla markaana ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa taageertay isafgaradkii dhaxmaray xukuumadda Somaliland iyo dawladda Itoobiya taasi oo ay aad u soo dhaweysay isla markaana ay fariin u dirtay in xukuumadda Soomaaliya oo arrinkaasi aad uga xumaatay kuna tilmaantay in Somaliland ayaga aanay cidna kala tashanaynin waa sida hadalka u dhigtay maamo Sahra oo amuurahaasi iyo kuwa kale ka hadlaysa ayaa waxa kamid ah hadaladeedii Rahmaan Rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay bay mahad u sugantahay marka hore aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta waxaan ku faraxsanahay go'aanka geesinimada leh oo uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi magaciisa iyo mijiisa baa la raajo geesinimada waan ku naqaanay inuu geesi qaran yahay Muuse uu ku suntanaa maantana wuxuu taabtay halkii ugu muhiimsanayd waxaan leeyahay Somaliland waa meesha ilaahay wanaajay waa dal istiraatijiya waa ilaahay bay nagu manaystay badaha iyo buuraha iyo bariga iyo meel kastaba ilaahay weynaa waaxidka ah bay noo dooray in aynu ka faa'iideysano badaheena iyo buuraheena iyo khayraadkeenaba waxay nagu ahayd waajib maantana haddii aynu halkaa maanta aynu raadka saarnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa waa go'aan qiimo leh waa guul soo hoyatay Somaliland waa wax dadku ku wada faraxsan yahay Somaliland dhamaanteedaba dadkana waxaan leeyahay dhamaantood dadka Somaliland waxaan leeyahay si fiican looga falceliyo aynu maalinka maanta xaflado ka dhigno aynu wada taageerno aynu go'aanka aynu gaadhay waxaan leeyahay macaar iyo maxaafid Somaliland waxa uu musha u dana ilmaha u dana inaka waxa inoo dana ah inaynu horumar gaadhno ayayna inoo dana waxa weeye hadaba waxaan leeyahay dadka reer Somaliland dhamaantood go'aanka si fiican loo soo dhaweeyo go'aanka hal la qaato hal lagu farxo waa guul inoo soo hoyatay waxaan leeyahay cadawgeena baynu maanta dhabarka ka jabinay waad arkaysaan xamar waxa ka dhacay ilaa xalay ilaa maanta waxay ka xuyihiin wax kororkeena waxay noo kordhay ka xuyihiin wixii noo kordhay ayay ka xuyihiin waxa ka dhacay waa idinka arkaya waxay sameynayaan waa idinka arkaya golahooda baarlamaanka ka wasiirada ka maxay hay'adeen guurtida dhamaantoodba maanta mid walba hadalka iyo go'aanka ka soo baxay xukuumadeena way ka wada naxsan yihiin waxay noo muujiyeen maanta oo kaliya hore way noo ogeeyeen Soomaaliya cadawgeena tahay laakiin maanta waxay noo muujiyeen wayna tuseen wixii ay hayeen bayna tuseen wixii ay hayeen ayayna tuseen waxaan hadaba u sheegaynaa Somaliland badeeda iyo buurteeda iyo khayraadkeedu wuxuu ka go'aa Somaliland wax idinka la idin daba fadhiisanaya ma jirto waxaan cid weydiisanaynaa ma jirto ilaahayna umada uu noo saqir idraafkana horaba waa noo haysanay maantana kii ugu weynaa ayaa noo hirgalaya dhammaanna beesha caalamka oo dhan waxaan ka rajaynaynaa inay si degdeg ah go'aanka u qaataan oo ay sidaa maanta madaxweynuhu ku wada talaabsadaan oo intii noo heebaysay iyo intii markii hore ama Yurub ha noqoto ama Ingiriiska ha noqoto inay maanta go'aanka iyaguna ku wada dhawaaqaan Somaliland maanta iraafkeeda oo la wada taageero oo la siiyo oo ku rasmi aynu helo ayaan horta Ilaahay ka rajaynaya waanaynu helaynaa waanaynu haynaa sistaandeedii waynu haynaaba cadawgeena waxaan leeyahay cadawgoodu ha jabo waxa la yiri ninka diiday sariintaada adna diin sinaantiisa waxa weeye Somaliland waa cadawgeena iyaga maxay ceerigaaba maxay laascaanood dabka iyaga ka shiday dhamaantood iyaga dabka ka shiday iyaga inagu diray dadkii aynu dhasheen hayn dadkii aynu wada joognay dadkii wax wada cunaynay iyaga dabka ka shiday oo balaayada Soomaaliya samaysay waadiga arkay maamul goboleed yar waxa la xujirna xayraan oo meel wacagta saarabaan haynin waa ku deelha waan tirasana hada waxa weeye waxaan leenahay Somaliland waa qadis ilaaheeda doortay xadkeedana way sugaysaa dawladeedana way ka adag tahay ilaahay baana maalinka maanta idraafkana siiyay waxa leeyahay kuna abaal bay hore noogu gashay oo waati maxasayada maalinka maanta meelan dhiganaa weynayaan meeshada dhiganay waan u mahadnaqaynaa maantana waxaan leenahay go'aanka aad qaadateen waan idinku taageeraynaa waxaan leenahay waa guul waa farxad inoo soo hayatay waa maalinka maanta waa maxay aad baan u hambalyeynaya
waxaan leeyahay hore u socda waxaan leeyahay Somaliland guul waxaan leeyahay Somaliland gobonimo Somaliland weligeed boo ilaahayda u wanaagsan ilaahayda ayaa ilaashanaya calanka tawxiid kale ilaahay de maalinka maanta ay noo dooray ilaahay noo dooray ba garabkeena taagan ilaahay noo dooray ayaa garabkeena taagan waxba inaga ma xumaanayaan maantana waa guul noo soo heetay waxaan leeyahay inuu taageerno aynu xafladaha badino aan soo dhaweyno iyo inaanu kala bixino dadka qaarkii ee ugartu shaqeynay war wixii inaga inoo dana hadalkeena u dana aynu ka wada shaqeyno kala ayana waxba ahayn iyo doorashadana iyaduna waynu gaadhayna waqtigeeda madaxweynaha waxaan leeyahay madaxaagii mijaaga la raajo geesi baad ahayd geesi qaran baad tahay dalkaadu soo halgantay maantana waajibkaaga baad gudatay waxaan leenahay guul iyo gobonimo aan ku soo ducaynaynaa madaxweyne noolow madaxweyne waan ku taageeraynaa madaxweyne waan ku garab taaganahay dawladda xukuumadda Soomaaliland dhamaanteed waxaan leenahay mucaarid iyo muxaafid ha guuleystaan ilaahay garabkeena ha galo ilaahay hayna garab joogo ilaahay uuna garab joogo walba imkana hayna sii garab joogo cadawgeena ha jabo oo ha baabo oo ha balan waxaa maanta ka xunay wada qaylinayna wax leenahay way idinka idinta Allah Ethiopia waxaan leeyahay Ahmed dawaaba xageena la lahaay waan ku faraxsanahay isagana waan soo dhaweynayna waa guul iyo gobonimo awalba dadka waynu isaga dhaweyn saar baynu ahayn dawladada Maxamed waxda baynu ahayn awalba wadakadeeda waa isticmaali jirtay maantana hadii lagu sii kordhiyay boqolkiiba boqol baan ku soo dhaweynayna adiguna waxaan gobonimo leenahay waxa lagu siiyay maanta kama xumin dalkayaga xor baan u nahay Somaliland baa leh Somaliland baa iyo waxay sarifanaysa Somaliland baa cid ay doonto keenaysa Somaliland ma cid muslim iyo galba ka Somaliland baa keenaysa waxa alla waxa maanta naga hor joogsanaya ma jiro masiirkeedana anaga leh waxaan leeyahay dawladda xamar ha ku lugayna ha nagu lugana kala soconaya sheegeen hadhan anagu idin ma aflagaadayno idin mana soo gaadhno waxana idin ma dirsano walaa baarlamaankiina aan noqon walaa maxay hayday wasiiradana aan noqon walaa madaxweynena aan noqon anagu waxaan leenahay waan dalkayga waan go'aansanay ilaahay baan na garab galay ilaahay baan na garab galaya han nagu daalina han daba meeraysanina dariina ku toos dalkiina 9 ka dawlad ka tarnayaan ee naftiina la ilaalinayo ee ajaanibku ilaalinayo idinka xoreyn u baahan ayaa nin kale ikhtiyaarkiisa suuqa ku maray malidi annaka madaxweynaha ayaa suuqa dhexdiisa lugeeya madaxweynaha iyaga ayaa suuqa dhexdiisa Soomaaliya iyo muxaafid bila cabsi baan noo anaga ciidana nama waabiso laakiin idinka la idin ilaaliya 9 dawladooda kala gaar ah ayaa idinka idin ilaaliye idinka xor u baahan inta anaga lagu soo maqantiine idinku isxareeya idinka xor u baahan idinku isxareeya way anagu waan ognahay gabal iyo way bariyaan anagu nabad baan ku soconaa lacagteedu banaanka ay taala dalkaygu dib habeenkii iyo maalin baan anagu waa noo maalin nabadgelyo aan ku joognaa ilaahay baan ugu mahad celinaynaa ku jaar baan ilaahay ugu mahad celinaynaa marka waxaan leenahay annaga ha nagu daalina Soomaaliya nagu daalin dawladaha kalena waan soo dhaweynaynaa Yurub waan soo dhaweynaynaa Ingiriiska waan soo dhaweynaynaa Afrika oo dhan cidina kale danayna soo dhaweynaynaa wixii naga bahdana waan bixinaynaa wixii danteeda ku jirto waan bixinaynaa waxaan ilaahay qudunqunta ku quuso ha nagu dawqina ha nadaba meeraysanina waan kala hadnay annagu Somaliland baanu nahay horena waanu u goosano 2 sanood baan goolsan samir badan waanu sameeynayo ilaahay samirkeygana wax nagu siinaya intaaba waanu samreynay intaaba waanu sugaynay hadii maanta ilaahay noo suura galiyay inta kalena maanta isna caawiya bari tole ku dhawaaqayaan hadaba waxaad yeeshaan daniina ku toos idinku saxreeya idinku markaad saxreysaan anagana soo gala markaad idinku saxreysaan anagana soo gala cadawaygu ha jabo cidana danaynaysaana dhammaan waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay garabkooda Allah ha galo wax walbana mucaatirfaan u nahay waana noo galahay boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaa dhammaan Somaliland waxaan leeyahay aynu guusha ilaahay noo keenay ku xamdu naqro anu ilaahay barino aynu xafladaysano aynu maxay haday meel isugu nimaadno wixii xunay jireen Allah inaga tuuro dhamaanteen bogeeda barcad Allah isku mariyo dad maanta wax wada leh oo wanaagsan oo fiican baynu nahay inta yar ku xasarayna ku xaka saaro la soo hadeer leenahay dhamaanteen ba guul iyo gobonimo noo rajaynaya guul iyo gobonimo Somaliland ha waarto Somaliland ha jirto Somaliland cadawgeeda ha jabo waxaan leenahay guul iyo gobonimo Muuse Xuseen Xasan SBC degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley